بوتاسو بابليك سكندري سكول waxaan halkan ka soo jeedinayaa in la yiri yani anaga arday fanfara oo 12 sano wax soo baranay xaq ma u leenahay in shahaadada buuq la galiyo oo labada dawladood ay madaxa isla galeen waxaan kale halkan ka sheegayaa yani anaga arday Soomaaliya nahay Soomaaliya ha noolaato waxaan sheegayaa in uu yiri wasiirka waxbarashada yani waxaan arkay arday yani shahaadada Puntland waxay ku tagtay Uganda laakiin waxa waa khiyaale arday walba oo Puntland ka taga wuxuu shahaadadiisa ku dhigsadaa Soomaaliya waxaan nahay Soomaali mana doonayno anagu Puntland Soomaaliya hanigoodo kana ka sheego oo digniin ugu diro cid kasta oo dawladda federaalka mucaaradka anagu waxaan garab taaganahay dawladda yada waxaan u baahanahay imtixaan aan ku qanacno mustaqbalka yada hooyooyinka iyo darbiyada ayaa la fadhiyanayo bartiin ka soo jeeday waxay tahay inaan u sheego cid kasta Soomaali diida anaga Puntland waxay noo tarayso male waxaan nahay Soomaali waxaan doonaynaa hal imtixaan aan wadano waa mid labaad Soomaali baan sheeganaa waxaan ugu baro waa English haddaan Soomaali oo ugu baro haddaan nahay macnaha aan sheegin ciidda Soomaaliyeed aan leeyahay Soomaali baan nahay waxaan isku haystaa shahaado qaado kuwa qaado inaan qof Soomaali waxaan ahay qof ku soo bartay luqadda Ingiriiska laakiin anigu waxaan doonayaa bartiin ka sheego waxay tahay waxaan doonaynaa luqaddeena in la soo cesho waxaan doonaynaa Soomaali ku barno waxaan doonaynaa inaan noqono Soomaali isku tiirsan dad dalkooda dadka wax u qaban kara Puntland marna kala qaybsiga Soomaaliya marna anagu Soomaali baan nahay Soomaali arna khalkhal magrabna in laga galo wasiirka Puntland khalkhal laga galo shahaadada marna Soomaaliya ana laata marna Puntland waxaan kan ugu mahadcelinayaa buuqa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee halka taagan iyo SBC oo helan danaha bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay ilmaha kuma jiro waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Puntland waxa uu ka dhawaajiyay in dalal badan lagu tii karo shahaadada Puntland saasha wadida wasiirka waxa weeye ma ictiraaf koob baa shahaadada bixinaysa mudana wasiir see wax ku wada maamul goboleed baa tahay shahaadada xagga laga qoonsan yahay riyaadka iyo xaqiiqada in laga hadlo waxaan rabaa meeshan bari khaasan iskoolka dugsiga sare boosas babisiga iskool waxa maanta ka haynaa shahaadada muranka gashay ee Soomaaliyeed ana runaantii waxaan arday Soomaaliyeed man arday Puntland